aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaada heer kalamaan beriga waa heesi rabaa bardihii ku yiil ishaabay dhabo intuu buniya baar baxay caleemuu ballaarteen baxar saaf laamoodiyey ma maqli jirteen waraa in gordaana hasina weedama gaada jiri wareer baydhabo been ha ka sheegin baxaar ma saafaane war ma baydhabo jannay baa ka wadiin aryaadaha warkayga dhex gelinee dawladdii arbacay waa tii arbacadi baydhabo tagtay berigoo khamiisa waa ku maqan tahay berriyo jimca heesay naqa doonta allaa og arbaca allahna gaarsiiyo war dawladdu caleemasaarkii lafta gareen bay adee buuq badnidina aryaa caleemasaarka lama beriya ka badan socda megag badana maraakiib baa lagu geeya hoy caleen maahin wax la saaro koostadii shabeellaha dhexe ka bixis waaye war maya waad waaranta waa ubaxniyow war maya waa shaalsaar waa la yaab warkiinnuna waxa uu eg yahay ow dadkii wareersan weligeed waqooyi koofurow yira dadkii wareersan weligeed waqooyi koofurow yira haye war adeer waqooyi waa waqooyi koonfurte waa koonfurteedii adeer goranta ha isku saarin oo ha isku qasbin war maahane waa wareersantihiine dawladdaani arbacay doorataa arbacay caleema saartaa arbacay safartaa arbacana waa timaadaa warna miyaw taarataruu andaka haytana war ana gorodaw mahaytana maysiin lahaa guddoomiyaha baarlamaanka maday mursal baydhawo jinaay madiseedii afka furuday hadali haye maxaad mursal xow yidhihe war ahaydiyoonay ahaadiiskan iska dhex dartoy doogakiidani doonka daratoy may ereey dadka degan deegaanada koonfur galbeed may baan baahanyiina dib u heshiisin rasme waari haya oo aad ula jeedo war dadka koonfur galbeed hadday u baahan yihiin dib u heshiisiin muxaadaradii sheekh kanyaabi ha dhigaystaan oo ahayd cafi walaalka hana kuwaana qaataan war labada gole ee baarlamaanka waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin iyo inay iscafiyaan in la iscafiyo ma xumee mooshinkiyaan geedka laga gey karay war adeero somalilan marnaba mooshinkiinna kuma qanacsana war doogii shimbirariir gobotiya oo kuweelena dhimaatirado oo degansada niman yaw guddoomiyihii maday mursal hayreed madi intaasi ayga dambe heesa ka dhowi may erey dalkuun koonfur galbeed iyo ney degaanshay diintiyo furgaan waldaneeyaw dawli imbahanaayeen waldaneeyaw dawli imbahanaayeen waldaneeyaw dawli imbahanaayeen yaga dhowi gamidi warnimayaha madaxweynuhu ma haysine waxa uu yidhi khilaafkii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe wuu soo dhammaanayaa weligood ha dirireen waa duul walaala ah iyo dersiya saaxiib inkastoo isdilayaan markay kuula daran tahay wuxuunbaa isugu daran diiqaan go'in iyo dun hoostaa isugu xihan kan ka dayrinaayow hadda firin xaqiiqada hoy lamagoodle wixii rabtiin maa sheegaysiin shabaab iyo kenya amay daris naqdeen ulkaa duulow mahas ugu tegoo dadkoo didilooyaan war madaxweyne farmaajo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo qadka taleefonka kula hadlay wuuna u tacsiyeeyey aryaadhaha madaxweynahaanyo kenya xow ka haleeya oo uga tacsiyeeyaha isagu wuxuu yidhi nin waa hore gabyo aanan hilmaamayni lama huba hal fooftaa inay caawa soo hoyane annaguna si hoosaysa baan u hindisoonnaaye la iskuma hallayn kara jawigu haatan suu yahaye markay laba hagaagtaba mid baa lala hogseegaaye markaasay balaayaha kisaa hawsha gebigeeda dadka yaga maryaa la huwiyaa xalaq ka buuxaaya markaasuu had iyo goor shacbiga carun ka hora inakan dogon war madiidaha nagadaayan lama huba inay soo hooyahayaan war ha nagadaayan wal huba aryaadhaha waxaa la yidhi lamadan beri baddaan laguma dabaalan mallayna lagama soo helin oo lamaba aadin ma dabaylihiyaa ku kacsan moogi ma wax kalaa dedan ma aqaan saa wax u jiraan waa yaabe hoy lamagoodle maroodiyo muuda cadamaayada mooyaa ku jiraan maqlino ha isku aadin maaha war baryahan badda waxaa ka degayaa la yidhi
January 68 gaari oo gawaarida gaashaaman oo dawladda Qatar dawladda Soomaaliya ugu deeqday. war waxaad sheegaysaan maaha badda waxaa la yidhi tahriib lama ogola. warnimadan waxaa idiin weydiiyey Qatar ma booskii maaladkay gashay aryaadhaha haddii Qatar timid ama Sacuudi xanaaqaahe war Qatar iyo Sacuudiga bulunay wada ciyaar rabaan. warnimada waxaa la yidhi mid markaan ballaminaa ka kale naga biqleeya ma og tahay wax ma biirsanay waa bedelanay boowe madaxweynaha Puntland wasiiradii buu ka joojiyey saxiixii kuwii horena dib baa loo eegayaa buu yidhi war adeero madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi wuxuu saxiixo ka qarnafsiiyo dib looguma noqdo imikana wuxuu handaraabay dawladda hoose. war magaalada Beledweyne duleedkeeda al-shabaab waxay ku xirtay nin ka mid ah ergadii xilbaanada soo dooratay oo haddana lugiis ugu tagay oo garsoor u doontay. hoy oday ma ahin waxay Kenya xirtay ciyaalka oo ciyaalsiyo ciyaalka xaafadda iska kuwa oo shakisi way iimaha inay weerareen ay xirtay Kenya kuwa kalena oo jiriyooysa. war waxaad ogtiin lama arkee ninka xilkiisii lagu qabsaday waa gudoomiyihii ururka sawirada. war saas ma meel dhismaha ka socda tiyaatarku hoy lama gool wadooyinkii xirteena in la furo u baahan. war adeero ictiraafku in yar buu noo soo jiraa ardoon uu kala kaxay. war yaa war wanaagsan sheega amana kala wada. aniga ma bilaw warka wanaagsan marka hore war ilmihiina la talsa war ilmaha rayaalow walaalka abi waa bariya aada war adeero ardoon naga tagaydin cafiimaynay adduunyada aqraadin ictiraaf lay weydiyaas waxa ku dhac maxaaniga waxaynaysa marka war haddaana nacfineen uu kala wadniyo war ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada qararacda nagala tag war qabta ninka qabta meel barakaysan dege